madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu heliyay ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta daafuray kulan noociisu cusub yahay oo loogu talagalay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliland ay ku lafaguraan aqoon isweydaarsi la xiriira ka jawaabista howlaha horyaala ugu horreeyna wasiirka amuuraha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire ayaa ku tilmaamay kulankani kii ugu horreeyay muddo 26 sanadooda ee ay isugu yimaadaan golaha xukuumadeed oo Soomaaliland soo maray isagoo intaas ku daray had iyo jeer inay muhiim tahay in golayaasha wasiirada ee cusub ay isugu yimaadaan kulamo kuwan la mid ah sida dunida oo kale madaxweyne maanta waa maalin taariikhda Soomaaliland ku suntan waxaan u maleynayaa 26 sanadooyin jiray waa markii ugu horreysay ee goluhu isugu yimaado kulan sidan oo kala u gaara laakiin dunida kuma cusba sida caadadu tahay marka golo wasiira la magacaabo hadiye jeer waxa loo qabtaa kulan sidan oo kala ah ujeedaduna waxa weeye in aragti midaysan laga yeesho shaqada qof walba shaqa u gaara laakiin shaqada ku gaarkay ma soconayso haddaan inta kale aan kula jaan qaadin sidii la soo jaan qaadi lahaa weeye ujeedada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wasiirada khudbad u jeediyay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in si midaysan looga hawlgalo hirgelinta barnaamijka xisbiga kulmiye ku ololeeyay xilligii doorashada dadka wax weyn u ballan qaado ballamo waaweyn baynu qaadnay inuu xisbiga kulmiye ah barnaamij dhixtiira oo qurux badan oo dadku aamineen baynu sameyn waxaan rabaa in barnaamijkii la furfuro ila uu koobnaaye oo 23 ka wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sanad 6 bilood 3 bilood qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDP2 waxaynu u baahanahay 120 cisho hore maxaynu qaban karaa ee runa guddiga qabanqaabada qorshe soo samaysay waa kan qaar kale soo inoo way jiraan waanu idin keeni idina wada ku dari maxaa inoo suurtagal ah inuu qaadno waa korayso dhibaatooyinka muhiimka ah ee hor yaala saddex maan arkaano mid waa nabadgelyada marka la furfuro waa mid dibadda ah iyo mid gudaha ah koo dadkii oo qaybsan oo reernimadii ka xoog weyn tahay qarannimadii laakiin idinku waxay ilaahay ku mahadisaa intayna halka fadhida nin reer kulima soo dooran aniga reer ma soo dooran qaranka oo dhan baa doortay labadii mucaarado way ugu raaceen marka reer sheegan karo dawladda jiidi kara ma jiro wasiirada halka fadhiyana ninna odayaal iyo aqal ma keenin mana ogeyn ciidamanaysa nin oo la soo galo laba oday iyo afar oday iyo aqal iyo reer hadhow u magna sheeganayaan ma lihidin waxa kamid ah ku darstaan qorshaha ka wadaysaan bisha March 2019 waxa laga rabaa doorashadii baarlamaanka ee dowladda hoose oo wax isla eegayno madaxweyne Muuse ayaa waxa sidoo kale uu sheegay inuu ka warwarsan yahay filashada aadka u sarreysa ee dadweynuhu ay ka filayaan waxqabadkiisa iyo duruufaha wadanka hor yaala dadka aniga wararkaygu haya waxa weeye marka expectation marka rajadu aad u weeto qof waxay dadka gelisay inay 3 bilood oo 4 bilood hore dee wax weyn aan bedelo arigu waa xidhay kamana hadalo waxaan hoos u dhigo waxaan labadii inteerada aynu kasoo ku caraarina soo ururayso Charles ka badan baan horyaala anigu waan coordinate gareeyaa oo ragga laga soo yeeray xilaan ciidankan haystaana waa idinka commandos aan leeyahay waxa soo burburiyaan waa idinka inta ka doonaya waa ka waxaan isku dardaarnaa aniga idinku waxa aynu hor yaala inaynu aad nooga fikirro maxaa dhaban qaban karaana xaqiiqo istaagno propagandada iska yareeyno mucaarad badan caayo jiraad badan caayna aynaan dhago dhigana wixii dhaban baa runtu baa socotee la ogaado mucaarad iyagana xaqooda rasiinayna mucaaradinu ogol lahay wada shaqaynta qarankeenu ka ogol lahay kaashgoodanu baahna inay dhaliishana sheegan dalkana wada dhisano space ka inay dhaliilana aanu siino iyagana aynu ku soo dabaalaxda war waxooda qabanayeen weel marayna isku weydiinaya wax inta dhibaatayna horta ayaa badan ma wada shaqeynaa aniga ka soconaa Cabdi Shakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa